ciidanka militariga Somaliland ee dul fadhiya magaalada Laascaanood ayaa dejiyay shax magaalada Laascaanood looga saarayo huwanta iyo argagixisada dhowrka bilood ka dagaalamaya gudaha magaalada Laascaanood. in ka badan 10,000 askari oo cusub ayaa la geeyay furimaha galbeedka magaalada Laascaanood, halkaas oo ay ciidanka Somaliland isku fidiyeen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo ay furimahaas dib uga gurteen ciidankii deganaa ee huwanta. sidoo kale xubnihii horboodayay colaadda magaalada Laascaanood ayaa kala dhuuntay kadib markii ay arkeen guuldarrada ku soo food leh. daawadayaal dhammaantiin muuqaalkan like saara siina share gareeya falowna soo dhaha page-keena si aad noola socotaan. sidaad la socotaan, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo waayadan ku mashquulsanaa dagaalka magaalada Laascaanood iyo sidii xal looga gaari lahaa colaadda ka taagan gobolka Sool ayaa xaqiiqsaday inaysan Puntland iyo kooxaha kale ee duulaanka ka wada Laascaanood aysan u soo jeedin dhinaca xalka iyo nabadda. waxaana uu madaxweyne Biixi ciidan dheeraad ah geeyay furimaha hore ee duleedka Laascaanood, halkaas oo ay dhowr bilood isku hor fadhiyaan ciidanka Somaliland iyo ciidamada huwanta ah ee dhufayska kaga jira Laascaanood. sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan madaxtooyada Hargeysa kula shiray guddiga u xilsaaran dagaalka Laascaanood iyo taliyayaasha ciidanka militariga Somaliland, waxaana halkaas looga wada hadlay sidii loo soo afjari lahaa colaadda Laascaanood ee muddada dheer qaadatay. sidaan xogta ku helnay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka Somaliland ee jooga Gooja Cadde, waxay madaxweynaha Somaliland ka codsadeen inuu siiyo amarkii ugu dambeeyay ee ay ku soo afjarayaan dagaalka magaalada Laascaanood. sidoo kale ciidanka Somaliland ee dul fadhiya magaalada Laascaanood ayaa saaka qabsaday aagag muhiim ah, halkaas oo ay dagaalaan kula wareegeen ciidanka Somaliland kadib markii ay ciidanka lugta Somaliland galeen buuraleyda halista ah ee galbeedka magaalada Laascaanood, iyadoo ay halkaas isaga baxeen kooxaha huwanta ah oo muddo difaac uga jiray. sidoo kale garaadada gobolka Sool oo hormuud u ahaa colaadda Laascaanood ayaa intooda badan isaga dhuunteen halkaas kadib markii ay ku adkaatay xaaladda Laascaanood iyo inay sii joogaan gudaha magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaa fashilmay damicii garaadada gobolka Sool, iyadoo ay rabeen inay kowdii bishan Laascaanood uga dhawaaqaan maamul gooni ah, laakiinse damacaas waa saqiiray kadib markii ay ciidanka Somaliland qabsadeen halkii wado ee Laascaanood laga geli jiray. sidoo kale taliyaha ciidanka militariga Somaliland Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo xubno sare oo ka socda madaxtooyada Somaliland ayaa ku sugan taliska guud ee ciidanka Somaliland ee Gooja Cadde, halkaas oo ay kulamo kula yeesheen saraakiisha kala duwan ee hogaaminaysa ciidanka Somaliland ee jooga gobolka Sool. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka magaalada Laascaanood. fadlan daawade muuqaalkan la wadaag asxaabtaada kuna soo biir page-keena si aad noola socoto mar walba.